maamulka dowladda hoose degmada Gadag iyo xubno kamid ah uqaasha degmada Gadag iyo siduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sool iyo si rasmi xarigii uga jiray isla markaana furay riigga magaalada Qoridheere ka tirsan degmada Gadag asoo indhuweeda fadhiyay wasaaradda khayraadka biyaha ayaa tixgelisay isla markaana si degdeg ah uga jawday baaqi iyo codsiga ay u direen dadweynaha ku dhaqan deegaanadaas iyadoo xilliga jiilaalka ay biyeelaan baahsan ka jirtay deegaanadaas balse hadda roobka guga uu ka cusboonaaday iyadoo halka ay hadalada daana ka soo jeediyeen Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi iyo Caaqil Daawud Ogla Faarac iyo siduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sool Axmed Maxamuud Xirsi ugu horreyn halka waxa ka hadlay maarka degmada Gadag Faarax Aadan Ciise hadaladiisana waxa kamid ah sida wad badan iyo xoolo badan inay ka cabi jireen in ceelkaas waxa weeye deegaanada waa ka xumaatay runtii waxa soo gurmaday wasaaradda biyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si wanaagsan bay hawsha wadaan haddana hawsha waa socotaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda biyaha khayraadka biyaha oo hawl anigu waa isduwihii wasaaradda khayraadka biyaha gobolka Sool baan ahay wasaaraddu waxay ku shaqaysaa qaab ah network meel kasta oo qof kasta loo tuhmaayo in uu shaqada qaban karo ka soo dhaqaaqa meesha xubna way isugu wada gurmanaa gobolada dalka oo dhan anagu shalay baan ku hadlayaa afka cuqaasha degmada Gadag ahna Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi waxaan halkan ugu mahadnaqayaa gurmadka naga soo gaaray wakaaladda biyaha hadday yihiin biyaha Burco iyo hadday yihiin gobolka Soolba iyo ku jamhuuriyaddaba sida fiican inagu soo gudbay baan ugu mahadnaqaynaa shaqaynaya riigga Qoridheere gaariga ka dhacay shilkaas aan noo sheegay anagoo waayeela run ahaantiina la yiri xoogaa gaarigii uu dhacay adigu waan u nimi ilaahay mahadiya ka gaadhay dhaawac weyn iyo dhimasho toona ma jirto wax uun deeska simbil bay noqdeen oo adigu markaa sidaas baan ku nimi iyagana waxaan ugu mahadnaqaynaa run ahaantii siduwaha ka socda gobolka Sool iyo Umar Sayre TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland